dhiso 6 qodob ha sameeyo 6 qodob haddaad samayso waxa laga yaabaa noloshaada in isbedel wanaagsan ay dhacayaan ta koowaad wana Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnaata qofka hadduu ilaahay ku xirnaado nolosha fara badan baa furmaya talabaad waa in qofku yeesho qof noloshiisa qorshe kale noloshaada haddaanad qorshe ka lahayn ma socon karaysid meel uma kici kartid gidaar walba isku ka xiraya albaab walba ku xiraya ta saddexaad waa inaad noqoto qof dulqaad leh qofka dulqaadka leh wuxuu ka fiican yahay qofka aan dulqaadka lahayn wax walba hal mar ma wada dhacaan laakiin wax walba hal goor bay marba xaalad ka duwan ay dhacaan qodobka afraad waa inaad ahaato qof aqoon leh aqoonta marka lagu leeyahay ma aha inaad ingiriisi kaliya taad akhrin karto laakiin waa inaad aqoon diineed leedahay aqoon maadi leedahay inaad waxna akhrin karto waxna aad qori kartid inaad dunidan haatan la socdo inaad la jaan qaadi karaysid qodobka shanaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan waa inaad noqotaa qof bulshaawiya ma ogtahay in kastoo qof bulshaawiya tahay inaad waxyaabo fara badan ay ku furmi karaan qofka hadduu yahay qof xirxiran waanu ahayn qof meel baanu kici karayn inay waxyaabo fara badan ka xirmi karaan laakiin furfurnaantu waxay ku horsaadaa waxyaabo fara badan oo baahneed inay koo furfurto qofku waa inuu activity yeesha qodobka lixaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan qofku isagu waa inuu suuq iska in karaa markaan kuleeyahay qofku waa inuu suuq iska in karaa waxaan ka wadaa waa inuu qofku aqoontiisa suuq la tagaa kartidiisa suuq la tagaa awoodiisa suuq la tagaa awood buu ilaahay ku siiyay awooddaada hoos u dhig 6 qodob haddaad samayso waxa laga yaabaa noloshaada wax badan inay iska bedelaan laakiin taas oo dhan waxa u sal ah waa Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnaantiisa mowduucyo kale oo aad u xiiso badan oo nin soo wada magacaygu Cabdisaaq Bande channel YouTube kana waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka kororsataan insha Allah ta'ala oo warbixino mowduucyo kala duwan oo runtii aan jecelahay bulshada intaan ku arkay anigu naftayda ku waanaya idinku naftiina in la wadaagayo aad baan mahadsantihiin